guurka ayaa ah dhacdo ay ku midoobaan laba qof oo isgeeya kuwaasi oo hadafkoodu yahay in ay nolol wadaagaan. haddaba dadyo badan oo ku nool dunidani ayaa leh dhaqamo kala duwan marka loo yimaado guurka. haddii aanu eegno dhaqamada ugu caansan ee ka jira dunidani waxaa ka mid ah in caruuska uu gabadha kor u xambaaro xilliga guurka. dhaqankaasi oo maanta laga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah. sida ay taariikhdu sheegayso dhaqanka xambaaridda caruusada xilliga guurka ah ayaa ah dhaqan markaasi laga soo minguuriyay Roomaaniyiintii hore balse maanta ku fiday meelo badan oo dunida ka mid ah lagana isticmaalo. waxaana shucuubaha kala gedisan ay leeyihiin dhaqamo iyo caadooyin u gaar ah oo ay sameeyaan xilliga guurka. haddii aan tusaale u soo qaadano dalka Nepal waxaa ka jira dhaqan la yaab leh oo ay leeyihiin qowmiyadaha dalkaasi dega oo ah in caruusku uu gabadha caruusada ah ka soo xambaaro gurigooda ilaa uu ka keenayo gurigiisa. dhaqankan ayaa ah dhaqan soo jireen ah oo uu ku qasban yahay shakhsi kasta oo gabar guursada in uu sameeyo maadaama loo arko dalkaasi in uu sare u qaadayo marxabada ka dhaxaysa laba qof ee guurka ka midoobay. waana arrin la yaab ku noqotay dadyo badan ee ku nool dunidani.